gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xilka laga qaaday iyadoona kuwa cusub loo magacaabay. Warar hoose oo la helayo ayaa sheegaya in xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha degmada Daynile gobolka Banaadir Cabdulle Nuur Faarax isla markaana loo magacaabay gudoomiye cusub oo lagu sheegay magaciisa Maxamed Abuukar Jacfar ayaa lagu xasuustay inuu mar soo noqday gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka xasilinta caasimada inkastoo markii dambe ciidamadaasi la kala diray. wararka ayaa intaa ku darayay in gudoomiye Yuriso uu magacaabay gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir kadib markii muddo 6 bil ku dhow ay ahayd degmadaasi gudoomiye la'aan maadaama gudoomiyaha degmadaasi oo ay ahayd markii hore Basma Axmed Camar uu magacaabay madaxweyne Farmaajo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir. dhowr bil ka hor ayay ahayd markii duqa Muqdisho uu isbedel ku sameeyay gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka Kaaraan iyo Aqshiid iyo gobolka Banaadir. walow haatan la sheegayo in gudoomiyayaal cusub xilka laga qaadi doono dhawaan isla markaana kuwa cusub la magacaabi doono. Hayeeshee magacaabida uu sameeyay gudoomiye Yuriso ee kala degmooyinka Hodan, Waaberi, Howlwadaag iyo Shangaani ayaa gabigooda ah kuwa ku meel gaar ah.